magacaygu waa Xamdi Cabdisaaq Xamuud oo ku magac dheer Hiil Hableed. waxaan idin doonayaa inaan halka idinku soo gudbiyo laba maaso oo ka hadlaya wadaniyada. midda hore waxay ka hadlaysaa mideynta shanta Soomaaliyeed. midda labaadna waxaa la yiraahdaa qarandoon. maasada koowaad waxaa la yiraahdaa shantii Soomaaliyeed, waxayna ka hadlaysaa mideynta shanta Soomaaliyeed iyo dhalinyaro waxaa jirta aaminsan fikirka ah maamul goboleed iyo qabiil walba inuu sameeyo maamul goboleedkiisa oo aysan waxba ka gelin calanka shanta Soomaaliyeed ama in la isku geeyo Soomaaliyo idil. marka maasada waxay ka hadlaysaa in dantu inoogu jirto midnimada shantii Soomaaliyeed oo had maashoornaashirna shabakad qura yeelana. warooy shiniduba ma laha itaal ay sheegatee waxay ku shaqaysataa hal shabaq bay wada sidaa shixnada malabay shubtaa haddana la shaxaadaya. shantii Soomaaliyeed oo had maashoornaashirna shabakad qura yeelana. shisheeyaana duufsado intuu ina kala shakalay oo shuush ina kala dhex dhigay shakina nagu kala ridee sharow guur aan dhahno samaa aan shaacine. shantii Soomaaliyeed oo had maashoornaashirna shabakad qura yeelana. nimaa shantu ka dib dhigin sharcigu kaama reebaye haddaan nahay shabaquro wixii sharku wada samaha intay shanku wada qabtaan sharciga la istaagayo shidada wadankooda rabin miyuu shuruflaha qalaa dalkeena ka shiri lahaa. tii Soomaaliyeed oo had maashoornaashirna gaariso shir ku yeelana jigjiga shaah ku wada cabnaa Jabuuti ku wada shaxnaa dabeeta natiijo shidan oo inaga ina shaafinaysa Hargeysa ka shaacinayo calankii shanta gees ahaa intaynu shakaalka qabano Muqdisho shaashka ku sugnaa. shanshiya boodaynu nahay hal meel wada sheegto oo sharqiga qarbi kala tagayn shidiya soo aragnay dhibe shax aan wada jeexano midnimada shiraaqane. shantii Soomaaliyeed oo had maashoornaashirna shabakad qura yeelana. waxay sharaf noqon lahayd inaga oo wada shirno shisheeyaha diidna oo run aan wada shiilano shaadale aan wada cabne. shantii Soomaaliyeed oo had maashoornaashirna shabakad qura yeelana. maasada labaad aan idin soo gudbinay waxaa la yiraahdaa qarandoon. sidoo kale iyaduna waxay ka hadlaysaa midnimada iyo qarannimada ay raadinayno inaynu kaliya ku heli karno inaynu isku tashano dhalinteena taariikhda iska daayaan dadkeena qurbo joogta ana ay wadankooda ku qanacsanaadaan. qofkii hore uga tagayna uu isku dayo inuu u soo laabto qofka joogaana uu iimaansado wadankiisa ku noolaado. waxayna ku bilaabmaysaa sidan qaafleyda maasada ma qoondeyn baryahano waa anigii ka qaayibay waxaan maanta qalinkiyo ugu qaatay xaashida qalbiga iyo hadal qaharkiyo dhibaatadan qaaqdan aan dhamaanayn qowlka dhiibo buu yiri waxaan idhi quluub yahay waxa qaadir kuu qoray iyo qalin hore u yiil midna lama qatalaye qiiradu hadday tahay qarankeeni baabaay. daaxaa qaxootiyo qalqolada shisheeyaha dhalinteenu qabato qarniyaa tahriib iyo badweyn lagu qulqulayo mukifaha qurmoonkii daaxuu qasaariyo noo geystay qaharo wiil qiimo doora leh markuu qoysku waayee bixin waayo qarashkii qowracay allaylehe. daaxuu inan qalweysto qofnimaday lahayd iyo sharaftii ka qaado nagu riday qamuuye qaadir baa awoodlo guulaha qorsheeye maantaynu qarannimo qarkeedii istaagnaye isqabsada gacmaha oo qarandoon haddaad tahay qolku yaalla Yurubood qarash badan ka dhiibtiyo qoqob laguma faanee wadankeena qaniga qurbo joogta maqaniyo qaran joogta xaadira haddii la isku qayshado meena qorsheyn karin midnimada quweyn karin meena saqaahira qadar taala sheegiyo qoomka reer Mareekana qiimaha wax dheereen.